اوكي كويس. يعني حوالي كم اوضه هنا بتيجي باستمرار؟ كمان قطط عارف حضرتك وندرلاند؟ وندرلاند هذه حديقه دوليه. بروح لهم هناك برضه 3 ايام في الاسبوع باكلهم هناك. الله اكبر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. اوكي الله اكبر. بالك قد ايه؟ بقالي حوالي انا سنه ونص. وجوزي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم دمان داودayal ku soo dhawaada channelkeena oo Musamira channel walaalayaal hadaad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar hadaad hore noola joogtayna like share and comment intaba nagu caawi aad baad mahadsantiin saad ugu xidhantiin channelka maanta fiidiyogeenu wuxuu ku saabsan yahay fiidiyo ka duwan fiidiyadii hore ee channelka uga barateen ee ahaa cunto karin iyo vlogs aynu ku soo duubno meelaha taariikhiga ah. maanta fiidiyogan waxa aan waraysi kula yeelanay maamo ka mid ah maamooyinka xaafadayda ku nool oo la yiraahdo Madam Nuha waa maamo daryeesha ama dayactirta xayawaanada dad la noolka ah ama xayawaanada dabijoogta ah baynu oran karnaa. ma aha xayawaanada dabijoogta markaynu leenahay inaynu xoolaha ka hadlayno aynu cunno oo khaliya waxaynu ka hadlaynaa bisadaha, eeyda, shimbiraha iyo kuwii soo raacay kale dameeraha. inaga xagga dameeraha xataa waynu inala noolyihiin Soomaa. markaas xayawaanada dad la noolka ah waxaynu ognahay inta aynan fiidiyowga maamada u gelin aynu waraysiga kula yeelanay waxaynu ognahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu nagu yiri adduunyada guudkeeda isku naxariista aan aniguna idin naxariisto. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo sheegay in gabadh ay ku gashay jannada ee ay waraabisay, gabadh kale ay haraadano ka soo baxay way waraabisay kaasay jannada ku gashay, gabadh kalena ay naarta ku gashay bisad ay haysatay oo ay xabistay xari ku xidhay deetaanay banaana u sii deynin meelaheeda inay ka quraabato kadibna gabadhaas sida ay naarta ku gashay. yaa Ilaahay naga badbaadiyo naar jirkeena Ilaahay ka koriyo dhammaanteenba. markaas maanta waxa aan jeclaystay inaynu isweydiino wadankeena haddaynu u nimaadno wadamada kale waynu aragnay qurbaha sidaas yacni wadamada gaalada oo kale ama reer galbeedka waxaad arkaysaa inaadan haba yaraatee aadan ku arki karin xayawaan sida eeyga, bisada, xayawaanada aadka inoogu badan oo iska yaacayo oo dayacan aadan arki karin oo ay leeyihiin inay dowladahoodu ka gaashaaman yihiin oo ay meel u sameeyeen lagu daryeelo xayawaanaadka. qaar rabaayad ahaan waxaan ku wari loo diyaariyo, qaarna maxaan ku oo loo soo tarbiyadeeyo rabaayad in loo dhaqdo, qaarna lagu hayo meelihii loogu talagalay xayawaanaadka ama ururaha jiraan. iminka wadankan aan joogo kale ururo ayaa jira xayawaankan dabijoogta ah u gaara oo loogu yeero haddii xayawaan halkaa lagu arko. inkastoo iska jiraan haddana ay badan yihiinoo xayawaano xaafadaha dhexdooda sida eeyga iyo bisadahaba aad ku arki karto sida maamadani kuwa ay daryeelayso oo kale. haddana haddii ay wax noqdaan ama cid wax yeelaan waa loogu yeeraa, iyaga loogu yeerayaa, iyaga ayaana qaada. laakiin wadankeena markaad u timaado haba yaraatee ma jirto meel u gaara xayawaanada dabijoogta ee la nool. bilicdii magaaladana aad bay u dilayaan dadkii. xataa haddii xayawaanadaas sidaas lagu daayo waxaad arkaysaa inay wax yeelayaan. inagu waxaynu aad u daryeelaa geela iyo xoolaha aynu cunayno, lo'da iyo ariga iyo digaaga iyo xayawaanadaas aynu manaafacaadsanayno baynu aad u daryeelaa. inkastoo jiraan dad inaga mid oo sida islaanta maanta aan waraysiga ka qaadnay oo maxaan ku raahdaa iyaguna sidaa u qoodiya oo Ilaahay u diro, waayo waa raxmad Ilaahay bixiyo dadka ma wada siiyo. qof Ilaahay haddaan dadkii dawlad iyo ururo xilis ka saara aanay jirin qof Ilaahay uga naxinayaa way jiraan oo naxariista u gelinayo sidii nin bari dhaweyd intee Allah u naxariisto oo magaalada Hargeysa ku nool TV-yada ka aragnay shimbiro ku dul qoodin jiray farmasigiisa. jawaanaan usoo dhigaa yiri bari waraysi laga qaaday. Rabbi subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto. sidoo kale waxa aynu aragnay mar uu ina tusiyey walaalkeen samafale Cabdimaalig Muuse Caldoon ama wariyaha weyn sida taqaanaan Cabdimaalig Muuse Caldoon uu dameer ku waxyeeloobay magaalada Burco. uu fiidiyo ka soo duubay uguna yeedhay qolada xanaanada xoolaha ee veterinary-ga magaalada Burco halkaasoo ay kula tacaaleen
marka waxa weeye way jiraan dad badan oo sidaas rabbi subxaana watacaala uga nixinayo ama u naxariista xoolaha naxariis rabbi u geliyo se laakiin ma haysano sidaynu wada ognahay dhammaan ama guud ahaan wadanka Soomaaliya oo dhan meelo u gaara anigu kulay intaan ka warqabo haddaad ogtihiin insha Allah kamankaygu soo wadaaga meelo u gaara oo lagu xanaaneeyo xayawaankaas inala nool ee dib joogta ah ma hayno ee aan ahayn xayawaanka aynu cunno markaas aad bay u fiicnaan lahayd in wadanku loo sameeyo meelo u gaara ama urur ha noqoto ama dawladdu xil ha iska saarto meelo u gaara waayo waxyeelo badan inoo geysanaya weeyaan haddii ay gaajoodaan imika eygoo kale inuu caruuraha inaga cunaa dhici karta ama dadka waaweyn ba cuno cidba ma dhaafaya hadduu xanuunsadana ka daran xanuunadii baynu ka qaadaynaa bisaduhu sidoo kale waxaad arkaysaa bisad illa bisad lugla bisad gaari jiiray waxaasoo dhan cuqubadooda xataa way nagu dhacaysaa rabbi subxaana watacaala way nagu eegayaa insha Allah waxaan leenahay alla isku naxariisto adduunyada guudkeeda dad xoolaha aynu cunayno iyo xoolaha kale aynaan cunaynba xayawaanka kale aynaan cunaynba loo naxariisto fiidiyowgina insha Allah waynu daawan doonaa iyo waraysigii aan ka qaadnay anaga iyo Dr. Cabdullaahi Axmed marka insha Allah داوشة وناكسن كذا مرة أنا مشيت من هنا يا ريت الناس أي حاجة فاضلة عندها أوكي بالك نزلها للحيوانات المسكينة دي اللي بتتكلم صح والله صح والله ما شاء الله يعني امرأة دخلت الجنة بهرة كانت بتطعمها وواحدة تانية دخلت النار بهرة حبستها صح يعني الناس تفهم ما تبقاش قاسية صح ما شاء الله حضرتك بقالك قد ايه بتدعمي القطط؟ بقالي حوالي سنة ونص وجوزي كان قبل ما يسافر كان هو اللي بيقول لي كنت بقى انا بعمل الاكل فوق وهو هو اللي كان بينزل صح يعني انا بقى طورت الموضوع بقيت احطه في اطباق هو كان بيحطه في اكياس ويحطه لهم انا لا بقى انا بقيت احطه في اطباق عشان ما يتخانقوش بس صح القطط بتتخانق على طول بتدعميهم ايه بقى؟ بجيب لهم هياكل فراخ وساعات سمك بعمل شوربه فاتك فيها عيش صح بواقي اكل القطط بتاعتي في قطط ليكي في البيت كم قطه 4 قطط ما شاء الله اكل القطط يعني مع السمك مع الرز مع كده صح في ناس وبجيب وبطعم برضو الكلاب في ناس بتتعاطف معاك مثلا او مثلا بتساعدك في وبتجيلك في ناس بتقعد تدعي لي وفي ناس بتبقى متضايقه مش عارفه بدايه من شكل القطط بقى لا بس انا ما بخليش انا اول ما الاكل بيخلص بتنظف المكان كلها وبلمها ولا كأن بيبقى في حاجه كويس اول ما بتخلص اكل بتمشي على طول ملتزمه في مواعيدها وفي ناس في خير وفي شر صح حاجه زي كده كان عندنا واحد كان بيطعم العصافير مش القطط فاول ما عملنا لهم فوق معلفه على الكمبريسور بتاع التكييف عملنا لهم معلفه خشب صح وفيها طباق للذره وفي طباق للميه صح كان اول ما مثلا يمشي في الشارع مثلا المنطقه بتاعته كل العصافير بتيجي من حدب وصوب كل الجانب حضرتك لو تشوف كميه العصافير هم بيهجموا حوالي 3 هجمات في اليوم يعني حوالي مثلا ممكن الهجمه ممكن يطلع لها مثلا حوالي 30-40 جوز حمام ويمام صح اللي هي العصافير اللي مالاش ناس اللي هي السايبه دي مش غيات يعني مش غيات اوكي كويس يعني حوالي كم قطه هنا بتيجي باستمرار كمان القطط عارف حضرتك وندرلاند هذه الحديقه الدوليه بروح لهم هناك برضو 3 ايام في الاسبوع باكلهم هناك الله اكبر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك اوكي الله اكبر بقالك قد ايه بقالي حوالي انا سنه ونص وجوزي قبلها بحوالي سنه كان قبل ما يسافر صح بعمله الاكل وهو ينزل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الحمد لله والله يعني عمل خير انساني يعني الحمد لله اوكي انا بشكرك يعني على ايه ربنا يقدرنا على فعل الخير اوكي اسمك ايه؟ اسمي مدام نهى. مدام نهى مع السلامة يا مدام نهى. waa tahay asxaabey sida aynu maqlaynay waraysiga dhexmaray doctorka iyo madam Nuha waxa uu ahaa kulli intiina carabiga fahmaysay waxa ay tiri bisadahan waxay noo sheegtay inuu xaajigeedu qoodin jiray laakiin muddo sanad iyo baraba inay iyadu xilkooda la wareegtay oo ay
sida faclal khayrka ay u quudiso. sidoo kale waxay noo sheegtay inaanay bisada uun ku koobnayn ee bisada iyo eyba ay quudiso. shimbiro sidoo kale iyagana inay ku quudiso gurigeeda guudkiisa ama guriga dhexdiisa. marka oo ayna dadari lahay u caawisaan cidina ku caawinay cunto gurigeeda ay ku samayso iyadoo ay siiso xayawaanka ugu tala gashay. ilaahay ka abaal mariya baynu leenahay. sidoo kale waxyaalaha aadka u xiisaha badan ee noo sheegtay waxaa ka mid ahaa inay tiri aniga xayawaankan ama bisadahan yaryar halkan ku haya waxay sameeyaan waqtigooda way ilaashadaan ilaa 2 waqti ayay wax siisaa. waqtigooda horey bay ka yimaadaan markay cunto cunaanna way iska noqdaanoo meelahay ka kala yimaadeen bay tagaan. waqtigooda marka ay wax siiso way yaqaanaan saasay ugu yimaadaan oo maaha bisada meel gaara jooga laakiin waa bisadaha xaafadaha. meelo kalena way sheegtay sida xadiiqad u dhow xaafadaheega iyadana way sheegtay oo ay tagto mararka qaar oo ay kusoo quudiso bisadaha. markaas wakaas sheekadii bay ahayd madam Nuha. markaas xaabay fiidiyowga yar wuxuu ahaa wareysi garaan la yeelanay maamada sida naxariista leh xayawaanka u quudisa bisadaha iyo eyda iyo shimbirahaba. marka insha Allah dhammaanteynba waxaan rajaynayaa inaynu facal khayrka kaga dayano. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baan idin salaamayaa aadna waad mahadsantihiin saad noo daawateen dhammaantiin.